tartan xiiso badan oo dhinaca kubadda cagta ah isla markaana u dhaxeeyay jaaliyadaha bariga iyo bartamaha Afrika ee ku nool Kenya ayaa maalmihii u dambeeyay si xiiso leh uga socday garoonka City Stadium ee ku yaala magaalada Nairobi. tartankan oo loogu magac daray nabadda iyo isdhexgalka bulshada bariga iyo bartamaha Afrika isla markaana uu soo qaban qaabiyay ururka dhalinyarada ee SYAO ayaa waxaa ka qayb galay 6 jaaliyadood oo kala ah Soomaaliya, Burundi, South Sudan, Uganda, Congo Democratic iyo Kenya oo martigelinaysay. ciyaartii kama dambaysta ama finalka ayaa waxaa isugu soo haray jaaliyada Soomaalida oo ah jaaliyada ugu badan ee ku nool wadankan Kenya iyo koox ka socotay wadanka Kenya. waxaa garoonka soo camray boqolaal dadweyne Soomaaliyeed ah iyo marti sharaf si gaar ah loogu cazumay kulankan oo ka mid yahay Cabdi Shire Jaamac ciyaar jecel oo ah abwaanka iyo hormuudka kooxda Qayladaan. kooxda qaranka jaaliyada Soomaalida ayaa ciyaar wanaag soo bandhigtay tan iyo markii uu bilowday tartankan iyadoo uu suurta gashay inay finalka soo gaarto markii ay guulo waaweyn oo saxiixiga ka gaartay kulamadii u dambeeyay. inkastoo ciyaartii finalka ay ahayd mid adag oo xiiso gaar ah leh ayaa haddana labada kooxoodba waxa ay soo bandhigeen ciyaar ay si weyn uga maqsuudeen dhammaan dadkii ka soo qayb galay. guud ahaan kulanka ayaa ku dhamaaday 2-0 oo ay guusha ku raacday kooxdii Kenya, kooxda Soomaalidana u suurta gashay inay xirato booska labaad. kooxda Kenya oo koobka ku guuleysatay ayaa heshay abaalmarin lacageed oo gaaraysa 25,000 oo lacagta Kenya ah iyo koobkii koowaad, halka kooxda Soomaalida ay hantisay 15,000 oo lacagta Kenya iyo koobkii labaad. xulka jaaliyada Uganda oo kaalinta saddexaad ciriirsaday ayaa helay lacag dhan 10,000 oo Kenya money ah. ciyaaryahanka lagu magacaabo Lazio oo qadka dhexe uga ciyaarayay kooxdii qaranka jaaliyada Soomaalida kana mid ah ciyaartoydii ugu firfircooneed ayaa ka warbixinaya sidoo uu arko booska ay kooxda Soomaalida ka gashay tartankan iyo waxa sababay guuldaradoodii finalka. waxaan aad ugu faraxsanahay kaalinta labaad maadaama aan ka galnay ciyaaraha maalmahan socday oo soo bilowday 5 bisha, marka aad ugu faraxsanahay inaan kaalinta labaad galnay. tiiman badan oo meesha ka soo qayb galay ayaa gaaraya heerkan. waxaa sababteeda lahaa in aan aan kaalinta labaad aan ka galno. shalay waxaan ciyaarnay kulan aan finaal dhilnay, aan koobkiisa qaadnay. maalintii ka horreysay game kale ayaan ciyaarnay. that's why oo sabab oo noo suurageliyay inaan aan teamku daalan oo la kulmay ku ciyaartaan aadaan ugu faraxsanahay guusha aan gaarnay. Andrew oo ahaa daaficii kooxda Kenya ayaa isaguna ka hadlaya dareenkiisa ku wajahan guusha ay ka gaareen tartankan loogu talagalay nabadda iyo isdhexgalka bulshada bariga iyo bartamaha Afrika. Yeah, we are grateful for this event that has been taking place, the East African Community Peace Tournament. It's been a good thing. The organization has been grateful. We're also grateful for what has been going on, and as the Kenya team, we have won. We've also had a tough competition from the Somalia team. It hasn't been easy. From the first half, we tried to pull up our socks. waa kuwan qaar ka mid ah dadweynihii Soomaaliyeed ee sida xamaasadda leh u soo buuxiyay garoonkii ciyaarta ka dhaceysay oo dareenkooda cabiraya. jira cali waxaan aad ugu faraxsanahay xulka qaranka Soomaaliya guusha ay soo hooyeen ay ku galeen kaalinta labaad. waxaan rajaynaynaa sanadka xiga inaan kaalinta koowaad ku guuleysano hadduu Ilaahay raali ka noqdo. ciyaarta aan la galay dalka Kenya iyo dalka Burundi waxaan kaga badiyay 6. dalka Kenya kuleyba waxa waaye ciyaar waa galin dambe ahayd maadaama arbitra ugu jiifeen. waxaan ku faraxsanahay kaalinta labaad aan galay. waxaan u hambaleynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. guud ahaan tartankan oo xiisiisa iyo xamaasadiisa si weyn looga dareemayay maalmihii u dambeeyay magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Isliya oo Soomaalidu ku badan tahay ayaa ku soo dhamaaday sidii loogu talagalay. tartankan loogu talagalay nabadda iyo isdhexgalka bulshada ayaa waxa uu qayb ka yahay howlaha nabadeed ee bulshada Soomaalida ee ku nool wadankan Kenya ay ugu dan yihiin in Soomaalidu ay ugu gaarto horumar iyo nabad xilli lagu jiro colaado wadanka Soomaaliya ay ka socdaan dagaallo. hogaanka Doocawaale Bibo S24 TV.